sidoo kale maanta waxaa weeye cadaaladda bulshada dadka si ay u qancinayso ummadda faa'iidaday u leedahay cadaaladda markaad maamul tahay ama mas-uul tahay ama maxay ahayd qoyskaada mas-uul ka tahay ama aad cidi doonto mas-uul u noqotid bulshada waxa qancinaya oo ka deganaya oo laqaysa waa cadaalad marka cumar bin khadaab waxaa lagu yiri warqad loo soo qoray reer khuraas waaligii goboltoorihii ka talinaya khuraasaan dhulka afghanistan iyo iiraan u dhexayso ilaa ereyadaas dhulka khuraasaan loo yaqaanay marka reer khuraasaan waxaan seefahayna aqbalayaan ma jirta u dhahay waa lagu soo yiri markaasuu cumar wuxuu yiri been baad sheegteen kadabtum xaytuma yuujadu alcadlu tastaqiimu الرعية markii cadaalad la helo raciyada waa la maamuli karaa waana maxay ahaato wayna toosaysaa marka dadkii waaliga wuxuu ku amray inay cadaalad sameeyaan marka qof kasta oo cadaalad sameeyo ama gurigiisa u sameeyo iimihiisa ama dadku mas-uul ka yahay ama dadku maxay ahaato hogaaminayo ama meel alle meeshu ama madax u noqdo ummad u noqday markii cadaalad la helo dadkana way ku aqbalayaan laakiin markaa cadaalad darro samayso oo eex samayso oo qolo gaara ama qof gaara aad wax ugu eexato colaadaada way cirka isku sii shareeraysaa noqo qof caadil ah oo dadka maxay ahaato u siman yihiin marka uu mas-uul yahay